Assalaamu calaykum soo dhawow daawade muuqaalkan waxaan kula wadaagi doonaa 65 talo ee qoraaga weyn ee Jason Brown uu ku qoray buuggiisa talooyinka nolosha irshaadaatul xayaa. war badan haan ma buuxshee aan wada daawanno daawade muuqaalka. haddii aad muuqaalka waxuun ka faa'iidahay ilaawin inaad igula saaxiibtid bartaan ood subscribe saartid kanaalka. intaasoo dhanse waxaa ka sii muhiimsan inaadin ilaawin like-ta waa muhiim. aan bilowna bismillah. talada koowaad waxay ku leedahay 2 qof ma guulaystaan. qofka aan dadka wax weydiin ee isla weyn oo isla weyne darteed aan dadka waxba u weydiin karin, iyo kan aan wax weydiin dadka ee xishood dartii aan waxba u weydiin karin. qof kastoo xariif ku ah shaqo ama hawl, waxaad xasuusataa waxaa jirtay maalin uu bilow ahaa. saa daraaddeed qof kastoo aad ku jamatid in uu wax kaaga wanaagsan yahay, waxaad ogaataa waxaa jirtay maalin uunba asaga waxba ka aqoon. warkoo dhan bilowgaada ha la barbardhigin waqtiga miro gurashada ee qof kaleeto. shahaadooyinkaada waxbarashada waxaa la arkay inay ku siiyaan shaqo, laakiin wax isbariddaadu waxay ku dhaxalsiin kartaa hanti. saa daraaddeed mar walba ku dadaal inaad hilmaamin inaad wax isbartid. isbar mawduucyada aad danaynaysid iyo xirfad kasta oo noloshaada beritooda u jeehayn karta kadinka guusha. hantida ma goyso waxyaalaha ugu qaalsan ee nolosheenna haysana. hantida way ku goysaa sariir, laakiin kuma goyso hurdo. mar walba ku mahadnaq rabbigaaga kugu nimceeyey nimcooyinkaas waaweyn ee hanti iyo hodantinimo midna ay goyin. dadka ula dhaqan si wacan oo wanaagsan. wanaaji dadka oo sharaf, soo dhaweey oo ixtiraam, laakiin ku mar ka fiirso intaadan qof kale dhaliilin. hodantinimada waxba kaalama maqno haddii aad leedahay ood haysatid qoys si dhab ah kuu jecel. saa ayaaba qani ku tahay. ma jirto waqti lama arag ah oo ku habboon inaad wax walba bilowdid oo ka wanaagsan kan hadda aad joogto. saa daraaddeed ka fogow caadada xun eed baratay ee ah inaad howlahaada la sugto waqtiga ugu munaasabsan. war maad akhriska bilowdid waqtiga ugu habboon aan bilaabi doonaa. waqtiga ugu habboon weli lama gaarin. waqtiga munaasabka ayaan la eeganayaa. war shaqadan maa qabatid sootaad ku haminaysay? maya, weli weeyo. waqtiga ku habboonaa lama gaarin. sugidda waqtiga ku habboon waa god madow oo ololaya oo noloshaada idil gubi doona, burburin doona. waana haadaan aad ku dhici kartid haddaadan iminka ku baraarugin. ku raaxayso maalinkaada. shalay way tagtay mana soo laaban doonto. berrina adiga ma hubtid inay imaan doonto. noloshaada u noolow qaabkaas u goonida ah. ha isku dayin inaad noqoto koobiga qof kale. ogowna guusha ma laha hal waddo ay tahay dadka oo dhan inay wada qaadaan. waad guulaysan kartaa adigoo adiga ah weli. adigoo adiga ah, adigoon iska dhigdhigin, aan koobiyeynin cid kale. tan kama dhigno dadka kale ee kaa wanaagsan ee shay gooni ah kaaga wanaagsan inaadan ku dayanin. dabcan wixii wanaagsan ee qofka samaynayo waa inaad kaga dayataa, oo waad kaga dayan kartaa, laakiin ha isku dayin inaad noqotid koobigiisa. ha isku dayin inaad noqotid koobiga cid kale. raasamaalkaaga ugu weynaad haysatid ee ay tahay inaad ilaashatid waa xiriirka rabbigaaga kaala dhexay. wanaaji xiriirkaas mar walba, si walbase oo u liica yuusan jebin oo uusan go'in. ha u oggolaanin nafsadaada inay cudurdaar u samaysato inay xiriirkaas ay goyso, maadaama uusan ahayn xiriir mithaali ah. waxaan ula jeedaa xiriir ceebka saliim ah, xiriir fiktaa sare joogo oo xagtimo marna aan gaarin. si kastoo u jilicnaado oo u liico, ha oggolaanin marna inaad goyso xiriirka rabbigaada kaala dhexeeyo. wax kasta oo aad maanta haysatid beritooda waad waayi kartaa. waa qaacido guud oo nolosha dhan qusayso. wax kastood maanta haysatid
beritoole waa waayi kartaa. Haddii aad hanti haysato waad waayi kartaa oo way burburi kartaa. Carruur haddii aad haysato beritoole waa waayi kartaa. Xiriir wanaagsan oo qof aad jeceshahay kaala dhexeeya haddii aad haysato beritoole xiriirkaas waad waayi kartaa. قاعدة ليس لها استثناءات.